inaan heshiino inaan isku soo dhawaano inaan wixii aan isku hayno inta badan aan dhamayno wixii kalena aan raacno dib aan u dhamaynaynaa marka waxaan waxa oo dhanna waxa nagala weynaaday waxa la doodon waxa nagala weynaaday nabadii iyo walaalnimadii iyo wanaagga dalkeena iyo dadka isku soo dhawaada iyo horumar la gaaro waxa leenahay marka waxa baa horta waxa ka horeeya marka wixii aan deegaano waan gaarnay presidentki iyo dadka la kulanayna si fiican bay soo dhaweeyeen aad bay arrintaas waxaan filaynaa insha Allah inta kale ma hadal inaan dhamayno oo sida dalkeena oo nabad ku ahaado wadaanimada lagu helo wanaagna lagu gaaro waxaan og tahay iminka dunida buuq badan baa ka jira goboladeena iyo gobolada kale ayaa buuq baa ka jira marka inagu hiddo waxaan u leenahay weligeenba inta xitaa dawladda noqon waxa hiddo u leenahay inaan markay wax dhacaan inaan isku tagno inaan wada hadalno inaan dhexdhexaadiyo inaan maanta markii dawladda heshiino sidaa waa inaan ogeeyno ku dhameeyna harma imikana inagu cidinoo dhaxaynay baan dawladdii inagu yaan heshiinay geli horta waa deestaa waa hadlayo kol waan kala waa soo noqonay marka aakhirkii waan kala waan gaasgaarnay waxaan leenahay sidaa bay nabad ku jirtaa aad ilaahay baan u mahadnaqayaa kasoo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo fikradda iyo leesay lahaa habkii loo galiyay wada hadalka iyo leesay sidii aan u jeclaan lahayn dadka reer Djibouti inay wada tashadaan iyagu xilligaas inta waxa ay raacda mahadnaqa dabadeed intii ka soo wada shaqeysay aniga Maxamuud iyo intii walaalahay ahayd ee ka soo wada shaqeysay yaan yakana aan leeyahay hambalyo reer Djibouti man yakana si gaar ah aan u hambalyeynaya marxaladana waa marxalad cusub ومرحلة الرجل بتاعه بهناين ومرحلة عن سلانة هديته على وجود بو هرمركي يمد نمدي يكل دل جعلكي يلا سكل جعلكي رجل بتاعه سكوا قبيننا على جارو أنا كنا وحنا رجينا إن شاء الله صدق متحولين هو بشيء جاي إن قوات كانوا إن المستقبل كان ودجيروا جوا شقينا وحي رجل بتاعه هاي إن يرس داف جري وحنا وحنا جت جاي دبش وقاده عدو جوجوين Djibouti leedahay waa shaqo la'aanta inaan culays ka saarno sidii dadka iyo dalka reer Djibouti ba aan horumar aan u gaarsiin lahayn taayna maanta salkeygii waa la dhigay madaxweyne uu ku mahadsan yahay baan leenahay intii odayaha ka soo qayb gashay aad bay ugu mahadsan yihiin iyo in dhalinyarada ورئيس اللجنة وزيرك وحبرشة قرنك دكتور جامع علمي عكية marka la dhisayo asaaska laga bilaabo maanta dadka dadka guul baahan dadkaas in kasta baan yahay bartamaanayeen wuxuu lahaa wadanka xasilooni amaan iyo kalgacayl dadka ku noolaadaan bay lahaayeen inta ilaahay ma hadii waad tasjiisi maanta suurta gashay awal waxa la oran jiray dhibaatooyinka dhacay waa soo ogeeyay labadii hore dagaal la isku qaado dibadda loo baxo waa la oran jiray tani maanta reer Djibouti waxay tusaysaa inay wax afka qalad ma tirite lagu yiraahdo misay gaadeen bisay marka siyaasadda inay ka gaadeen bisay siyaasadda ay gaadeen oo yakiyo haba yaraatee dhibaato dhicin ismaandaafkii ka dhacay ma doorashooyinkii inay ku soo afjareen maanta si wanaagsan la kan ilaahay wata ma hadii salo nabaduna waxa weeyaan ma wax la ilaaliyo hareeraha laga galo si fiican loo wanaajiyo saxarka laga dhawro saxarada soo dhacay saxaradiisa si wanaagsan ayay haliyay wadanka u dhashay oo maxaa uu adaa oo nabadda si jacaylkeeda ku dheer wadanka xasiloodiisa iyo shirka Djibouti farxadooda aad u jecel oo kamid yahay xasan gudaar todoon oo kamid yahay macaan bakar goro xamid oo kamid yahay Ismaaciil Umar Geelle Ismaaciil Geed Xaraad Ahmed Diini iyo intii kale hawgashada intaas ugu yimaadaan inay hawsha u galeen nabadda kale laakiin maanta halka waxaan ka arkaynaa muhiimad inay labadu dhinacba walaaltinimo kalgacayl waa mahad wadan jacayl ay ka muuqato ay dib ayaa waxa isku kaaya keenaya ayaa ka weyn waxana kala qaybinaya waxa isku kaaya keenaya midnimada walaalnimada nabadda dal jacaylka isqadarinta haddii aan maanta heshiinay insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu heshiiskaasi hirgalo annagoo gamcaha haysaysanna in dalkeena iyo dadkeena aan u shaqeyno baan aad u rajaynaynaa halkan waxaan ka hambalyeeynaa ummadda reer Djibouti oo runtii aad ugu sarow joogtay una heelanayd in khilaafkan siyaasadeed la soo afjarmo dareenkooga daahir Ahmed Farax oo maanta heshiis baa dhacay ka dhaxdhacay midowga USN iyo leeysa xukuumadda waxa aan rajaynaynaa sida ay mas'uuliyiintii hadlay iga horeeyay khudbadeeda ay yiraahdeen inuu heshiiskaasi midho dhalo u suura galiyo dalka iyo dadkaba inay ka gudbaan xaaladda adag ay ku jiraan wadankeenuna uu talaabooyin door leh u qaado xagga horumarka waxa la rabay waxa weeye in ummaddu ay nolol
xora oo xalaala ku noolaato faqad intaan baa la rabaa cid wax kale u jeeda dana gaara doonaysa dalka duminaysa ma jirto xaq bay reer Jabuuti u leeyihiin meel ay doonaan dalka kaga noolaadaan inay ku noolaadaan nolol xora oo xalaala dalkeenuna waa uu nooleeyahay ma badnin maliyun waan ka yarnahay 23 kiilo isku soo wareega meel khayr qabto ilaahayna dhigay waxaan nagu aaminsanahay ka maarad ahaan in ummadda looga wada faa'iideyn karo waxaan rajaynaynaa inuu heshiiskani xagga iyo arrinta wax ka qabto midowgii USN haddaan su'aasha dhinacani ka jawaabo waa uu dhan yahay maanta cid naga maqani ma jirto wanaag baan wala rabnaa waana isku duumana mucaaradku waa iska mucaarad xildhibaanadiisu de baarlamaanka ayay hawlahooga ka fulin doonaan wixii lagu heshiiyey ku qornay heshiiskana sidii loo fulinayay uu hirgeli lahaa si runa ugu hirgeli lahaa ayaanu ka shaqaynaynaa iyadoo mar kastaba dee danta guud la ilaalinayo nabadda la ilaalinayo walaalnimada la ilaalinayo wixii u dana dalka